doqayga iyo kaga isku dara yaado bisami kugu daawado doqayga iyo kaga isku dara dalkii aan lahayn diniga ahaa orka doobdabiya dibiga wuu kiciye wax daara iyo dulanka aan lahayn yaana gobdawoy dabka kaaga shida dalkii aan lahayn diniga ahaa orka doobdabiya dibiga wuu kiciye wax daara iyo dulanka aan lahayn yaana gobdawoy dabka kaaga shida sida dalandalkii dada kugu yira daqay kula hargala Hej och välkomna till vår studio om kanal. Vi sänder måndag klockan 16:00 Stockholm, största lokal TV i Sverige. Abdi Kadir Ibrahim heter jag, programledare i Somali Star TV som ni brukar titta på måndagar klockan 16:00. Om man missar programmet, vi har en hemsida som heter www.somalistartv.weebly.com. Shilta ayaan idinku soo qori doonaa homepage-keena kusoo dhawaada ayaa idin leenahay haddaan nahay bahda TV-ga Somali Star TV Abdiqaadir Salu program leedaraha Somali Star TV oo maalmo isniin ka daawataan saacada markay tahay 4 ilaa 5 galabtii ayaa hawada idinku isku macsalaameynaa barnaamijkeena qayb badan ayuu isugu jiraa dhinaca dhaqanka dhinaca ciyaaraha dhinaca wax qabashada dhinaca dadka Soomaalida wax u qabtay oo maartay aan ku casuunay stuudiyaha oo markaas noogu soo booqdaan stuudiyaha iyo dhinaca wadankii wufuudda ka timaado oo halkan iyadana aan soo siideyno hadda shirar badan aan ka qayb galnay bariyaha kan oo halka Stockholm ka dhacay ayagana waa idin soo siideyn doonaa ayaga oo maartay ajal ah live waxaan kaloo booqanaa jaalidaha Soomaaliya wareysigan ka soo qaadnaa ayagana halkan waa idinku tusnaa maanta waxaan nasiib u hesheen oo maartay stuudiyaha ila fadhido gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Muna oo ka socoto shirkad magaceeda ayada noo sheegi doonto oo isku barastaarin doonto anagoo wareysi gaaban ka qaadi doona shirkadaas oo ah shirkad ka jirta magaalada Halmstad oo maartay caawinta dadka lixaad aan u dhameeyn oo maartay hadii jiraan dad badan oo Soomaali oo maartay guriyaha ku haya dadka maartay aan lixaad u dhameyn in maartay gabadha la soo xiriiraan maadaama afkeena luqadeena ku hadlayso gabar Soomaaliyeed oo afkaran kartaan dadka kale waxa laga yaabaa inay Swedish iyo ajnabi kale iyo maartay xiriir kiin u adkaado marka maadaama ay gabar Soomaaliyeed tahay saas ay stuudiyaha u keenay maanta oo forebuild Soomaalida u tahay marka ina la soo xiriirtaan addressida telefonadeeda waxa dhan meesha idinku qoraya hadda interview ka qaadi doona gabadha laakiin intaan u gal interviewga oo Muna maartay skimbarin stuudiyaha waxa halkan ka sheegaynaa in tenista alla fotofira kala xiriir kartaan dhinaca coachingka Ahmed Qadar ay kala xiriir kartaan iyo Rashid telefoonadooda oo ku soo qori doona halkan tenista alla fotofira maalban halka oo sidaas oo ka sheegnaa marka dhinaca xafiiska shaqada qofkii fastari ku jira wala xiriir kara qofkii maartay rabo in coaching loo sameeyo taas nafteeda waa very positive sababta waa in luqadaada ku hadlaya Soomaali ah oo maartay dhinaca xafiiska shaqada marka ka soo dhameysato waxa leedahay xafiiskaas aan rabaa maartay inaan la xiriiro coaching marka tenista alla fotofira Kunskap Udvikling i Norden ayaa la yiraahdaa mashruucaasna marka qayb labaad kale ayaa barnaamijka ka soo siideyn doona oo ku saabsan booqashadii ku timi halkan fanaanadii cusleed Saada Cali Warsame oo maartay wareysi aan ka soo qaadnay iyo heesaheedii maartay meesha ka qaaday barnaamijkaas oo ka dhacay Folksuus ee Rinkeby iyo soo dhaweyntii halkan Stockholm oo aan ilaa airport ugu tagnay ku soo dhaweynay marka taasna qaybaha dambe ayaa maartay idin tusi doona laakiin marka hore waxa idin horumarinayaa wareysiga Muna oo maanta stuudiyaha igu martay Muna ku soo dhawow TV meesha hadda magacaaga dadku waa ka barisan taariikh daawadayaasheena Soomaaliyeed marka hore dadweynaha isbar magacayga waxa weeyaan Muna Muuse shirkad baan aan wada oo maxaa la dhahaa personal assistance firma oo dadka jiran caawiya dadka lixaad macnaha aan maskaxda u dhameyn caawiya baan ahay
marka habkee macnaha dadku caawintaan waxaa caawiyaa dadka buka hadday hadli karaan oo hadalkii ay karayaan anigay la soo hadlayaan waxay oranayaan dhibaatada baa haysataa waxaan u baahan yahay personal assistant hadday iyaku hadli karaan iyaka direct ila soo hadla markaa baan caawiyaa fasaakrinkaas hadday assistance team ishadning ay leeyihiin way imanayaan markaa fahandling wala hadal baan galanaa haddii lihiin assistance ishadning fasaakrinka asagaan uga dacwiyaa aan maxaa la rahdaa aan u dalba waa wax wanaagsan weeye marka soomaalida kulley Soomaali badan hadda sharciga qaadatay Soomaali badan maartay na daawanaysa Soomaali badan dhinaca webka naga daawanaysa adduunka meel walba oo hadhow maartay marka barnaamijka soo gelino webka macnaha habkee kula soo xiriir karaan markay rabaan inay kula soo xiriiraan waxa weeyaan hamsidagayga bay soo gali karaan halkaa bay telefoonka iyo maxaa la dhahaa telefoonkayga iyo telefoonka kontoorka iyo wax kasta iyo email hadday rabaan inay soo diraan bay soo dirayaan waxay maxaa la dhahdaa waxay rabaan bay ii macneynayaan markaas hadday rabaan hadday meel kala degan yihiin oo Stockholm ahayn ama Halmstad ahayn meeshaas aan u tegayaa markaan maxaa la dhahaa aan isla ballanno aad marka ballantaan qof walba meesha joogo Soomaaliya meeshiisa ugu tagaysa ku soo booqanaysa wax wanaagsan way annaga hadaan nahay bahda meediyaha hadayna la soo xiriiraan oo ku soo gudbin karnaa way soo gudbin kartaa aad marka fikradan fikrad fiican waaye maxaa marka hore kugu dhalisay kugu dhalatay fikradan inan walaashaya oo iga yar baa jiran waxay leedahay autism marka iyadoo yar baa maxaa la rahdaa diagnoska lagu sheegay so ilaa intaas de anigii hooyaday baa soo haynay marka halkan nimanayna maxaa la rahdaa way ciyaal assistance baan galnay oo hooyadayna af Swedish kama taqaano afkii baa de way isku adkaadeen so ma isfahmayaan dadka ajaanibka iyo hooyaday ama Swedish ahaadaan ama Carab ahaadaan ama waxay doonaan ahaadaan markaas aniga bilaaway markaan iskuulka ka baxay aniga bilaaway shirkadaas nacam hooyaday iyo familiga daraadiis marka fikradda meeshaas kaaga soo dhacday waana fikrad fiican waaye hadda Soomaali kale oo markaas iyo dad kale oo badan oo caawinta way jiraan Soomaali shirkadda marka Stockholm xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa Halmstad magaceeda marka maxaa la yiraahdaa shirkadda Renaissance Assistance marka Stockholm hadda hadii maartay maadaama hadda shaqadaada Stockholm u badan tahay ma laga yaabaa macnaha in aad maartay Soomaalida macnaha aad meelaha ay kula kulmaan jaaliyadaha iyo Renkibi hadii lagu baahdo oo shirarka iyo waa arimahan macnaha waa ka jeedin kartaa waan ka jeedin karaa anagana waxaan ku ballan qaadaynaa markii shirarka Soomaalida isugu yimaadaan oo Renkibi hadda weeyga hore kale shirar waaweyn jiray Soomaalida iyo fuuda in maartay meesha shirkadii dadkii ka barto si kula soo xiriiraan aad marka maxaa u rajeynaysaa mustaqbalka shirkadda waxaan u rajeynayaa inay shirkaddu dad badan ay ku soo beeraan ku soo dhawaadaan aan iyagna si wacan u caawiyo oo maxaa la rahdaa de nacam dadkayga Soomaaliyeed inay yimaadaan oo aan isla shaqeyno aad isla shaqeysaan marka qaybaha oo kale oo shirkadda ka damacsan tahay inaad ku weynayso kale